Tilmaam Academy. bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada mar kale iyo kooriskeena imtixaanaha ahaa ee English Vocabulary and News. Today waxaan rabnaa inaan qaadano Unit 22 oo qayb ka ah module-kan loogu macdaray leisure oo ah waxyaabaha qofka markuu free time ku yahay uu jecel yahay inuu qabto. Today waxaan rabnaa inaan fiirino wax loo yaqaano eating out, cunada banaanka laga soo cuno iyo meelaha laga cunteeyay iyo waxyaabahaas aan baran doonaa markaa. Section A, place where you can eat. Meelaha ama goobaha ka soo cunteyn kartid. Meelo aad u fara badan jira wax laga cunteeyo sida kafeeda, restaurants iyo waxyaaba noocaas oo kale ah. Bal marka hore section A aan sal dhegaysano kadibna aan dul istaagno markaas mid mid. A. Places where you can eat. Cafe. Cafe. You can have a cup of tea or coffee and a snack there. For example, a sandwich or a cake. They sometimes serve meals too. For example, lunch, dinner, restaurant. Restaurants. You go there for a meal. More expensive than a cafe. Bar or pub. Bars and pubs serve alcohol and soft drinks, non-alcoholic drinks. For example, fruit juice. You can usually have a meal or a snack there too. Fast food restaurant. You can get a quick hot meal there. For example, burger and chips. Takeaway. Take away. You buy a snack or a meal there and take it home to eat. Alright, bal aan sala fiirino markaan place where you can eat. Waxaan ku bilaabi doonaa cafe. You can have a cup of tea or a cup of coffee. Meelaha kafeega ama shaah laga cabo ayaa waxaa loo yaqaanaa cafe. Waa meel aad u yar. Sidoo kale waxaa laga heli karaa snack. Snack waxaa loo yaqaanaa for example sandwich oo kale or cake. Sandwich waa rooti wax la dhexgeliyo oo kale ama doolasho aad cunada fudud aan iska dhigi karnaa snack aa loo yaqaanaa. They sometimes serve meals. Cafe meelaha waxaa kale qaarkood ay bixiyaan ee dadka u adeegaan cunooyin fududna siiyaan. For example waxaa ka mid ah lunch qaada ka heli kartaa, dinner cashana waa ka heli kartaa sometimes. Cafe waxaan ku xijin doonaa restaurant maqaayad. You can go there for a meal. Badanaa maqaayadaha waxay caan ku yihiin oo loo tagaa oo loo aadaa in laga soo cunteeyo cuntooyinka waaweynka sida quraac, qada, casho. More expensive than a cafe. Waana ka qaalisan tahay marka loo fiiriyo kafeega. Kafeega waa meel aad u yar cunooyin fududna laga helo. Restaurant aad ayay u weyn tahay. Waxaan ku xijin doonaa bar oo pub. Waa iska ag dhow yihiin. Bar af Soomaali waxaan oranaa bar. Meeshan waa meel bar ah. Waa meelaha caan waxay ku yihiin in laga helo cabitaanada oo alcoholic drinks ka kale iyo cabitaanada caadiga ah laga helaa bar. Bars and pubs serve alcohol and soft drinks ay dadku u adeegaan. Soft drinks waxaa loo yaqaanaa non-alcoholic drinks, cabitaanada oo alcoholka aan lahayn, khamriga waxyaabahaas aan ahayn. For example, fruit juice, cabitaanada oo qudaarta laga sameeyay. You can also have a meal or a snack there too. Sidoo kale bar or pub magacaas aan baran hadda waxaa kaloo laga heli karaa cunooyinkan oo laga heli karaa. You can have there breakfast quraac ka heli kartaa, lunch ka heli kartaa qado, or dinner cashana ka heli kartaa, or snack. Sidoo kale cunooyin fududna laga heli karaa sida doolashada iyo waxyaabahaas oo kale. Fast food restaurant. Cunooyin maqaayada waxaa jiro dadka u adeego cunooyin fudud. You can get a quick hot meal there. Cunno kulul oo aad u fudud ayaa laga heli karaa. For example, burgerka oo kale and chips iyo baradhada oo kale meelaha laga helo waxaa loo yaqaanaa fast food restaurant. Waa hadda waxyaabaha magaalada laamiyada waxyaabaha kuwa ku yaalo kale waxaa loo yaqaanaa
fast food restaurant. Take away ereygaas aad aan u isticmaalnaa waayahan dambe. Take away. You can buy snack or a meal there and take it home to eat. Waa meel aan la fadhiisan oo qofka inta gato uu hore usii qaadan karo ayaa waxaa loo yaqaana take away. badanaa hadda waayahan dambe waxaan u isticmaalnaa qof markuu dalbado wuxuu leeyahay aniga bariis isii take away iga dhig. It means waa inaa xaafad u qaataan rabaa ma ku cunayo meeshaan waaye. So you buy a snack or meal, cunno fudud ayaa dalban kartaa ama cunto caadi ah quraac qada casho, and take it home to eat. Guriga ayaan ku cunaysaa markaa. Alright, let's see section B in a restaurant. bal hamar aan isla fiirino iyadana maqaayadaha marka la tago waxaa badanaa ka jira wax loo yaqaano menu. waxa la yaqaan menu waxa waaye waa cunnada maqaayadan ay hayso, listiga cunnooyinka ay hayso oo dhan ayaa ku yaalo. tusaalehaan maqaayada tagtay waxaa dhihi kartaa can I have a menu? ma heli karaa menuga ma heli karaa, oo ah waxyaabaha ay haysaan iyo lacagaha sida loo kala gada iyo waxyaabahaas oo kale. markaa bal aan isla fiirino markaan waxyaabaha menuga ku yaalo. B. In a restaurant. Starters. Soup of the day. Mixed salad. Main courses. Steak with chips or new potatoes. Fish and chips. Vegetable curry. Salmon fillet with green beans. Burger with chips and mushrooms. Desserts. Chocolate ice cream. Apple pie. Fruit salad. Alright, bal hamar ila fiiri. menuga wuxuu u qaybsamaa ilaa iyo 3 nooc badanaa. wuxuu nagu bilaabi doonaa starter, waxyaaba af bilaawaa jiro, cunnooyinka inta saxda aan dalban maqaayadaha badankood waxay bixiyaan wax loo yaqaano starter. badanaa marka cuntada weyn intaan lagu keenin ayaa lagu siin doonaa si aa ugu sugatid. marka badanaa waxay bixiyaan soup of the day, for example maraq yar lagu sii siin doonaa iyo rooti yar ayaa kusii baashaaleysaa markaas. mixed salad oo kale, qudaar yar oo laisku dardaray oo kale mararka qaar. main course, cunnada weyn oo loogu talagalay in aadka loo cuno maxaa ka mid ah, taas af bilow ahayd. starter af bilow oo kale ah. cunnooyinka waaweyn ahayaan waxaa ka mid ah steak with chips oo kale, hilib oo iyo chips laisku daray, or new potatoes waa baradho oo aad u yar oo weli aan weynaanin waa kale new potatoes. fish and chips oo kale, malaay iyo chips baradhada la qalajiyo oo kale. vegetable curry waa cunnooyin badanaa ka samaysan waxyaabo kulul. curry spices ay wadataa. okay, salmon fillet with green beans waa malaay oo la jarjaray geesahana laga soo dhigay digirta inta aan laga bixin dhamacasada oo kale. ayada cagaaran oo nool ayaa lasoo saari doonaa markaas. burger with chips and mushrooms, meeshaan waxaa ku jira burger, rooti la dhexgeliyey wixii hilib ama malaay waxyaabahaas kale, with chips noola socda, mushroom noola socda sidoo kale. desserts waxyaabaha macmacaanka ah aan ahayn cunnada weyn aan ahayn oo badanaa la cuno markii cunnada la dhameeyo kadib. waxaa ka mid ah chocolate ice cream oo jalaato oo chocolate wax laga sameeyo kale. apple pie waa tufaax oo asagana lasoo habeeyey lasoo jarjaray oo kale. fruit salad waa qudaar caadi ah sida cambe, babaay, qare waxyaabahaas kale markaa. v kuwa qaar v ayaa la hordhigay. v waxaa laga soo gaabiyey vegetarian. marka soup of the day it means waa cunto uu cuni karo waa qofka oo vegetarianka oo kale. vegetable curry ayadana sidoo kale waa hilib yar oo basbaas wax loo soo sameeyey oo cuni karaan dadka vegetarianka waxyaabahaas kale. section C ayaan kusoo gabagabayn doonaa chapterkan oo ah expressions. sidee loo isticmaali karaa marka maqaayad adigoo joogo, eating out ayaa samayseen adiga iyo familkaaga, adiga asxaabtaada. so sidee u sheekaysan kartaan adiga iyo qofka waiterka ah. bal aan isla fiirina meeshaan marka hore. C.
Expressions. Are you ready to order? Yes, I'd like the steak, please. Would you like it with chips or new potatoes? With chips, please. How would you like your steak? Rare, medium, or well done? Well done, please. And what would you like to drink? I'll have a Coke, please. Is everything all right? Thank you. It's delicious. Could I have the bill, please? Yes, of course. Alright, bal aan isla fiirina markaan waxaa badanaa sheekaysanaya waiter and customer. Iska soo qaad adiga inaad tahay customer. Maqaayadda markaad tagtid badanaa waxaa ku imaan doona qof waiter ah. Waiter waa qofka maqaayadda ka shaqeeya oo ninka ka shaqeeya waay. Haddii gabar tahay waxaan dhihi lahayn waiters aan dhihi lahayn. Marka ninkan wuxuu ku dhihi doonaa marka ugu horeyso, are you ready to order? Wuu ku imaan doonaa markaa fadhiistid diyaar mu tahay in wax dalbatid waaye. Are you ready to order? kadibna qof kasta marka wuxuu dhihi karaa yes I'd like the steak please waxaan u baahanahay hilib aan u baahan u dhihi doonaa markaas would you like it with chips or new potatoes waxaa u baahan tahay inaad ku cuntid chips baradhada caadiga waaweyn iyo new potatoes waa mid yar oo weli aan soo weynaanin waaye midana laga yaabaa af Soomaali saxan aysan jirin laakiin new potatoes waa baradhada intaysan soo weynaanin oo meel yar ay joogto waaye customer waxaa la weydiiyey marka noocee ku rabtaa would you like it with chips or new potatoes labadankee ku rabtaa chips ma ku rabtaa mase new potatoes qofka customerka muxuu dalbaday with chips please oo dhaha markaa chips ayaan ku rabaa u dhaha markaa how do you like your steak hilibka sidee lagu kariyaa noocee jeceshahay rare ma jeceshahay dabka ma la tusiyaa bes wax yar ma la saaraa medium ma jeceshahay dabka meel dhexe la geeyo or well done mas waxaa jeceshahay in si aad loo soo kariyo dabka waqti fiican la siiyo for example maybe rare oo kale waxaa laga yaabaa in 5 minutes dabka la saaro medium oo kale 10 minutes la saaro well done waxaa dhici karta in 20 minutes la saaro marka qofkan waxaa leeyahay hilibka sidee jeceshahay customerka muxuu dhihi karaa well done please ani waxaan jeclahay in si aad loo soo karkariyo waqti fiican la siiyo waiter and what would you like to drink حاجة أنا عبتد what would you like to drink customer muxuu dhihi karaa I'll have a coke please waxaan rabaa inaan cabo coke oo laga soo gaabiyey Coca-Cola kaas waa markaa later intaas kadib xoogaa kadib wadana ku imaan karaa wuxuu ku weydiin karaa is everything alright okay wax qaldan maa jiro waxaa u baahan tahay maa jiro cuntada ka sheekee amula markaa is everything alright wax kaas okay miyaa micnaa thank you it's delicious way fiican tahay maadaama cuntada aad u macaaneed ee waxba aysan qaldaneen waxaa leedahay it's delicious aad ayay u macaan tahay it's very good camal waay later xoogaa kadib haddana wuu ku imaan karaa ama adiga u tegaysa waxaad dhihi kartaa could I have the bill please ma heli karaa billka ama receiptka cuntada una qiimaheeda ma heli karnaa waay yes of course marka ereyadan waa ereyo aad u muhiim ah haddii aad tagtid oo aad samaysid eating out haddii aad banaanka tagtaan oo maqaayad aad tagtaan ama restaurant ama cafe ama bar ama fast food restaurants ereyadan waa ereyada aadka u isticmaali doonto markaas okay halkaas aan ku gabagabayn doonaa insha allah unit 22 sida caadadan ahayd waxaa markasta samayn jirnay markii aan dhammaanay unitka waxaan ka shaqayn jirnay exercise uu wato oo caddeynayso in chapterkaasi si fiican u fahantay waxaa inoo balan insha allah chapterkan chapterka xiga insha allah see you insha allah nabadgelyo